dhugo sida ay habeenkii u iftiimayso maalintiina u dhalaalayso kolka lagu duubo kaamirada heehaabta. Garowe caasimadda dhulka Uduga waxa ay samaynaysaa horumar muuqda. xasuusnow marka lagu leeyahay caasimad in laga sheekaynayo meel muhiimad gaar ah leh sida magaaladan oo xilli hore loo doortay in ay xarun dhexe u noqoto gobollo kala duwan oo dalka ah. horumar walba oo halka ka socda waxa uu sawir ka bixinayaa Puntland. wejiga koowaad ee sheekadanna waxaan ku dul istaagi doonaa mashaariicda hirgalay muddadii gudoomiye Geedi ahaa maayarka ku-meel gaarka ah ee magaalada caasimadda u ah dhulka Uduga. 15 Sebtembar 2022 ayaa madaxweyne Deni magacaabay mudane Geedi. 6 beri kadib magacaabistiisii ayuu xilka la wareegay isla markaana waxa uu kordhiyay saacadaha shaqada xafiiska si loo laba jibaaro howlaha bulshada loo hayo. waxaan ka bilaabay markii ugu horeysay inaan wax ka bedelo saacadaha la shaqeeyo oo degmada tan ay shaqeyn jirtay markaan u imi 5 saac iyo bar ilaa 6 saac inta u dhaxaysa salaada aadaanka. waxaan u bedelay inaan taamkii wax ka bedelo oo aan ka dhigno 6da aroornimo ilaa 2da duhurnimo. labadaasi waxaa xigtay ileenhaan gumba laga unkaayay in hor iyo horaanba loo kurgalo baahiyaha caasimadda iyo deegaanada hoos yimaada si loo ogaado habka ay u kala mudan yihiin. gudoomiyuhuna bil kadib magacaabistiisa waxa uu safar lagu sahminayo baahiyaha deegaanka ku tagay ilaa 34 deegaan oo Garowe hoos yimaada. inaan soo indhayn waxyaalaha ay u baahan yihiin baahiyahooda annagoo ka wada jawaana dhammaantood qolo walba inta ay Ilaahay ugu kasanayay ka gaartay. 34 deegaan 28 IDB iyo 10 xaafadood oo caasimadda ka kooban tahay ayaa maamulka looga fadhiyay in uu dhammaantood baahidooda ogaado kadibna loo guntado sidii wax looga qaban lahaa. deegaamadii la soo maray degdeg ayaa looga jawaabay baahiyahooda waliba kuwa hortabinta leh. Garowe mashaariicda bilowgiiba hirgelintooda hoosta laga xariiqay waxaa ka mid ah dhismaha buundadan oo ah mashruuca ugu culus ee caasimadda laga hirgelinayo. intii uu hoggaanka hayay gudoomiye Geedi ku dhawaad $7 milyan ayaa baanka adduunku ku bixiyay dhismaha bridge-kan oo ka gudbaya qaarka hoose ee Toga Maqarshe. Togan waxaa lagala kulmi jiray in laga gudbo caqabad waliba xilli roobaadka. waa wadada magaalada kale ku xirta hospitaalka guud ee magaalada, iskuulka dawladda ee Gambool, jaamacadda BSU iyo meelo kale oo muhiim ah kuwaas oo dhammaantood in la tago hawl laga mari jiray markii Toga kani bilaa bridge-ka ahaa. iskuulaadkii, jaamacadihii, dhakhtarkii, meelo badan oo muhiim ah wuxuu noogu yaalay Toga dhinaciisa. si haddaba looga baxo dayacaasi waxaa gudoomiyaha iyo guud ahaan dawladdu u guntadeen sidii buundo rafaad ka reebto loo saari lahaa Toga iyadoo oo lagu guuleystay in adduunka lagu qanciyo taageeridda buundadaas. fulinta hawshan waxaa mas'uulka ah dawladda hoose ee Garowe oo hore iyo habeenba joogtaysay sidii shaqadaasi ugu qabsoomi lahayd qaabkii loo qorsheeyay. ruuxantii shaqada intaan joogay lugta ka baqaan bridge-ka meel kastaan u maray geed walbaan u fuulay ilaa meesha ugu dambeysaan gaarnay. dad baan dhulka duminay dhul baa la marsiiyey caqabad kasta loo maray inta waxaa loo maray in bridge-kaas maalmaha ka mid ah oo ku istaago lagu haysto. dadaalkaasi waxa uu dhalay in tallaabadan lagu guuleystay iyadoo oo hadda bridge-kan oo si casri ah loo dhisayo uu marayo meel gabagaba ah. hawsha baaxadda leh waxaa barbar socday shaqooyin kale oo ay ka mid yihiin dhismaha jidadka cusub iyo dayactirka kuwa duugoobay. dawladda hoose waxa ay laami saartay jidka mara xaafadda Waaberi oo sidoo kaleeto waddadaasi loo sameeyey buundajiif. si la mid ah midaasi waxaa dawladda hoose ay bilowday dhismaha buundajiifka jidka Nexam si looga fikiro badqabka muwaadiniinta xilli roobaadka. dhinaca kale waxaa dayactir iyo dhamaystir lagu sameeyey jidka Soddonka oo hab casri ah loo dhisay kaas oo horseeday in magaaladu ay fido iyadoo ay dhismayaan fooqyo dhaadheer. markii wadooyinka la dhiso inta hadda irsheedu qabatay dhowr dabaq baa ka socda, magaaladii waa isbedelaysaa, ganacsigii baa kobcaya, noloshii dadka isbedelaysa. arrimahaas oo dhan waxay noqonayaan wax dhulka nugu nigeeya. wadooyinka la dhisayo waxaa kale oo ku sidkan dhiraynta oo iyaduna muhiim u ah bilicda magaalada iyo midda deegaanka guud ahaan. intaas la fuliyey marka laga yimaado waxaa xilligan miis ka saaran ilaa 13 wado oo dawladda hoose ay diyaar u tahay bilowgeeda kuwaas oo ay ugu horeeyaan jidka Shaariqa, midka bulsho iyo kan jaamacadda Bariga Afrika. dawladda hoose ee uu hogaaminayo maayarka caasimaddu waxa ay ku dadaalaysay in si heer sare ah magaalada looga maareeyo biyaha roobka iyadoo oo jidadka loo sameeyay biyo shubyo si looga taxadaro biyaha fariisa magaalada dhexdeeda. kolkii la gaaray xilli roobaadkii ayaa gudoomiyaha magaaladu amray in la banneeyo moos walba oo xilligii jiilaalka ciidu buuxisay. waxaanu la kulannay hawl wadeenno xilliyo kala duwan oo ay habeen ka mid tahay furaya moosaska magaalada. si loo daboolo baahiyaha degmada gudoomiye Geedi waxa uu falageeda galay in la helo shay walba oo caasimaddu baahi u qabto. kuwa bilowgiiba codsigooda laga soo jawaabay waxaa ka mid ah gaadiid kala duwan. ka bilow debdemiska oo ah nooca casriga ah kaas oo awood u leh inuu damiyo dabka qabsaday guryaha dhaadheer ee ilaa 600 ee tallaabo kor u dhisan.
sidoo kale gaadiidka gargaarka degdega ah ayaa ka mid ah gaadiidkaas sidoo kale 3 ka mid ah noocyada cagafta oo magaaladu baahi u qabtay ayaa lagu guuleystay iyadoo inta ay dheer yihiin gaadiidka dadweynaha ee basaska loo yaqaano iyo qaar kale markay ahayd 11 bishii Oktoobar habeen anoo xamar jooga ayaa waxaan ku fakiray inaan hawsha u qareemo isla markiiba fariimaan diray jawaabtaasana ka soo baxday mar haddii gaadiidka dawladda hoose siyaaday waa muhiim in la helo goob dayaca ka jirta sidaa darteed maayarka magaaladu waxa uu hirgeliyey geyrashka cusub oo ay leedahay dawladda hoose ee caasimadda Garowe maayarka caasimadda oo og baahiyaha ganacsi ee suuqa gaar ahaanna midka NG oo ay inta badan ku yaaleen ganacsiyada asaasiga waxa uu kormeeray suuqyadaasi isaga oo ka xog waraystay ganacsatada hawlaha kala duwan waliga maayir loo soo gala maarag horta waa mahadsan tahay ilaah baa mahad leh aad baad u mahadsan tahay intaasi kadib waxaa shaqo la yaqaan laga qabtay suuqa NG oo lagu sameeyey dayactir ku salaysan xogtii horey looga ururiyey dadka halkaasi ku ganacsada Puntland si guud waxa ay ku amaanan tahay soo dhaweynta iyo dejinta dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda kuwaas oo ka soo barakacay xaaladihii kala duwanaa ee ka jiray koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Garowe caasimadda dhulka uduguna waxa ay ka mid tahay magaalooyinka la mahadiyey ee sida mugale u martigeliyey dadka Soomaaliyeed haddaba iyada oo laga duulayo doorkaasi horeyba loo qaadan jiray ayaa waxa dawladda hoose ee Garowe hirgelisay dhismaha xalka waara iyada oo bilowgiiba dhinaca la isu saaray daaro danyartu ay kaga raysanayso cadceedda xilliga kulul iyo gabadanada xilli roobaadka kun guri ayaa inta la dhisay mulkiyadooda lagu wareejiyey danyar Soomaaliyeed oo ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale jid magaalada ku xira ayaa dawladda hoose u samaysay xaafadan howlwadaag Garowe howlahaas lixaad kale ee la hirgeliyey intii uu gudoomiyaha ahaa geedi waxaa dheer shaqooyinka joogtada ah bilicda caasimadda oo laga shaqeeyo waxay ka mid tahay waajibaadyada ugu horeeya howlaha madaxda caasimadda sidaa darteed gudoomiyaha geedi iyo tiimkiisu joogto ayay u ahayd ilaalinta nadaafadda iyo maareynta fiiqa magaalada iyadoo ay jireen maalmo la isku ballansaday oo guluf lagu qaaday fiiqa iyo wax kasta oo saameyn taban ku leh badqabka deegaanka iyo caafimaadka bulshada caasimadda ku darso oo wacyigelinta bulsho oo la joogtay iyadoo dadka mar walba la gaarsiinayay fariimo waxtar leh sida midda ciidanka debdemiska degmada Garowe ay maalmaha xiriirka ka wadeen magaalada Garowe ciyaalka xilliga xagaaga yaan dabka loo dirin mas'uuliyadda la iska saaro xilliga xagaaga mas'uuliyadda la iska saaro ciyaalka yaan dabka loo dirin iyadoo hawle halkaasi marayso ayaa la soo gaaray muddadii loo qorsheeyay qabashada doorashada dadweynuhu codkiisa dhiibanayo geedi oo xubinka xisbiga ka ah waxa uu ka mid noqday xubnihii codadka dadweynaha weydiisanayay shacabkuna waa ugu abaalgudeen codkooda ilaa hawlihii uu qabtay ayaa hir dheer ka bidhaamaye doorashadii iyo kadibba waxa geedi iyo howlwadeenada kale ee caasimadda Garowe ay sii wadeen hawlihii horumarinta magaalada wadooyin horle oo ay ka mid yihiin wadada shacabka ayaa habisku tashiya lagu dhisay midda Gambool hormarta ayaa la dhisay wadada weyn ee Waabari dhexmarta iyadana inta la dhisay ayaa la naleeyay waxa sidoo kale la dayactiray oo dib loo qaaday wadada Soddonka waxaana loo sameeyay nalayn ka mug weyn tii hore shaqooyinka kale ee dawladda hoose hirgelisay waxa ka mid ah in la dhisay buundada laanta Califriin oo ay dadku ku qabeen dib xilliga daadadku soo rogmadaan taas oo dawladda hoose maalgelisay intaasi waxaa dheer dhagax dhigga jidada waa la bilaabi doono sida wadada Kowda Ogosto ama Exgolis wadada shacabka iyo jidka Soddonka isku xidha iyo wadada isku xidha buundada labaad iyo barxada sidoo kale wadada cimaad oo banaanka magaalada ah si dhismaha iyo maalgashiga dhulku uu kor ugu kaco dhanka kale waxa laba waji oo sahana lagu sameeyay mashruuca maareynta daadadka caasimadda iyadoo dhawaan la bilaabayo fulinta mashruucaasi taasi oo noqon doonta xal waara oo laga gaadho xaafadii hore biyuhu ay u hoogan jireen shaqooyinka kale ee dhameystirmay waxa ka mid ah hirgelinta wajigii labaad ee dhismaha guryaha oo la hirgeliyay in 500 oo qoys loo dhisay oo raasumaal si adeegga loo daadajiyo dawladda hoose waxa ay la soo wareegtay maamulidda 10 iskuul oo qaar ka mid ah dayactir dhisme lagu sameeyay sidaas si la mid ahna waxay maamulku degmadu ay la wareegeen oo baahi tireen 4 ka mid ah MCA-yada magaalada kuwaas oo furo u ah in adeegyada asaasiga ay degmadu la wareegto mustaqbalka dhow howlaha hirgalay marka aan halkaasi ku hakino iminka waxa furan baal kale gudoomiye geedina waxa uu noqday ninkii koowaad ee 59 sano kadib dadku ay soo doortaan oo magaaladan gudoomiye ka noqda waxa hortaal xujo cusub waxaase uga degan qorshayaal kala horeeya oo lagu horumarinayo magaalada kow xilligan waxaa miiska saaran dhismaha in ka badan 20 wado oo ay ka mid yihiin midka shaariqa midda bulsho wadada Hospital Soomaali ilaa Ibrahim Dheere iyo kuwa kale oo dhawaan bilaaban doona waxaa la dhameystiray mashruuca biyo saarista magaalada oo haddaba socda dhismaha guriga degmada oo awal ahaa G+1 waxaa la qorsheeyay in laga dhigo G+2 si loo helo dhisme u qalma magaalada caasimadda ah oo casri ah kaasoo leh beero nasasho iyo xafiisyo horumarsan
dhirayntu waa furaha bilicda iyo muunada magaalo walba garowana hoggaanku waxa uu qorsheenayaa in qaarkii hore xilli dhow lagu daro ilaa 20,000 oo geed iyadoo ay jiri doonaan ololayaal loo qaadayo kuwaasi oo lagu cagaarin doono caasimadda 5 biyaha si bulshadu ay hesho biyo macaan oo nadiif ah magaaladuna ula jaanqaado caasimadaha adduunka waxa maamulka degmadu dadaal lixaad leh uu ku bixinayaa dhamaystirka mashruuca biyo macaaneynta magaalada garow 6 caafimaadka waxa uu ka yahay adeegyada asaasiga sida darteed 25 December ayaa la dhagax dhigayaa dhismaha cisbitaal weyn oo ku fadhiya ilaa 2 kiiloomitir oo isku wareega hirgelintiisa kadibna waxa uu noqon doonaa mid dadka daalka ka reeba oo safarada dibadeed ka baajiya sidoo kale waxa qorshuhu yahay in dhammaan MCAjada maamulkooda iyo daryeelkooda ay la soo wareegto degmadu 7 qorshaha halka waara waxa lagu dhisi doonaa 5,000 oo guri si loo dajiyo dadka soo barakacay hiraalka fogna waa in Garowe laga waayo sandaqad iyo hoy aan daar ahayn waxaa meel wanaagsan maraya qurxinta iyo hagaajin heer sare ah oo ku socota beerta dalxiiska caasimadda oo la rabo in ay noqoto mid quruxsan oo lagu soo hirto ammaanka caasimaddu waa lafdhabarta qorshaha 4 sano ee guddoomiye Geedi waxaana dhammaan la hormarin doonaa laamaha ammaanka waxaana il gaara lagu eegi doonaa cid kasta oo ku hawlan ka shaqaynta wixii amniga liddi ku ah waxaa dibudhis iyo casriyeyn lagu samayn doonaa aargada barxadda weyn ee magaalada astaanta u ah iyada oo jidka weyn ee magaalada dhex marana laga dhigi doono labahaad si badqabku kor ugu kaco waxa ay degmadu ka shaqayn doontaa horumarinta garoomada cayaaraha si loo horumariyo xirfadda dhalinyarada cayaartooyda ah ayaa iyadana joogto looga shaqayn doonaa midka weyn ee miro awaare dhammaan qorshayaasha aynu soo taxnay waxa uu dubdhexaad u ah isla xisaabtan hubin iyo joogtayn si ay u hirgalaan waxa markii ugu horeysay Puntland laga sameyn doonaa maktabadii dadweynaha si loo koriyo maanka bulshada loona ilaaliyo dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida si haddaba loo helo caasimad horumarsan bilic leh lagu soo hirto oo amni buuxa leh waa muhiim in muwaadin walba uu garab galo madaxda u guntan qabashada shaqooyinkaas horumarka ay ku gaarayso magaalada Garowe ee caasimadda Puntland amni buuxa iyo bilic hanaan halka lagu bartay Garowe bulshada jirkiyo Garowe nabadoo budiga inta laga helaa